عبد الرحمن عرو زعيم الانفصاليين هو مثله مثل عيدروس الزبيدي الذي فر هاربا من اليمن، والذي حاول أن يقسم ويعلن دولة في جنوب اليمن. أيضا عبد الرحمن عرو نريد ونود من الدول الشقيقة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية أن تتعامل مع هذا الانفصالي عبد الرحمن الذي يريد أن ينقل ويصلب حق الفلسطينيين وينقل إلى هذه الأراضي. نريد أن يتعامل مثل ما عومل عيدروس الزبيدي. intaana idinla wadaagin khudbadda uu wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ku dalbaday in Sacuudigu uu ka caawiyo Soomaaliya dagaalka lagula jiro gooni goosadka. Cabdiraxmaan Cirina uu la mid yahay al-Subaydigi doonta kaga baxsaday koonfurta Yemen. waxaan idin xaqiijinayaa war weyn oo dhagihiinu ku farxo maalmaha soo aadanna aad arki doontaan ficilkiisa. Sacuudigu wuxuu ballan qaaday tababarista iyo qalabaynta cir iyo dhul ciidanka waqooyi bari Soomaaliya ee ka hortagaya qatarta Israa'iil. Turkiga isagana wuxuu qalinka ku duugay mar hore saad la wada socotaan difaaca xeebaha Soomaaliya isagoo xilligan la firayo soo caga dhigashada dekada Laasqoray. maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya wuxuu noqday halka ugu dambeeya ama rubadda ama sanbabada uu ka neefsanayo magacii Soomaaliya. haddii la waayo maamulka waqooyi bari oo uu jiritaankiisa meesha ka baxo ma jirayo madaxweyne dambe ee Soomaaliyeed ee sheegan doona magacaas. sidoo kale ma jiri doonto kursi Muqdisho yaallo oo caalamka cayr looga qaadan doono. haddaad aragtid xasan sheekh oo 5 bilood ee la soo dhaafay dhayalsanayay maamulkaas oo ka cagajiidayay ku ordaya Laascaanood ma ahan damqasho qarane, waa badbaado kursiga iyo magacii Soomaaliyeed. qodobka wato dul istaagi doona runtii waa in la xuso. haddii la oran jiray xuska 26 Juun iyo 1 Luulyo 6 February sanadkii 2023 maalintii ismada waqooyi bari ama SSC ay ku dhawaaqeen inay yihiin maamul hoostaga dowladda federaalka, waxay ahayd maalinta sida dhabta ah ee Soomaaliya ay uga xarowday gumaysiga sahyuuniyadda Israa'iil. maalintaas go'aankii ugu dahabsanaa, go'aanka taariikhiga ah kaas buu ahaa. waxaan Ilaahay u barayaa dhammaan ciidamadii beelaha harti ee si iskood ah oo tabarucaad ah oo aan loo ogeyn u difaacay qarannimada dalka. xilligaasi xasan iyo kooxdiisu waxay lahaayeen Laascaanood dagaal qabiil baa ka socda, iyadoo dhanka kalena Jabuuti ay ka socdeen heshiisyo 3 geesood oo dhex mariyay Muuse Biixi, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh. balse wiilashii dhiigooda la xaqiray xilligaas ee calanka Soomaaliyeed u dhimanayay oo xasan iyo kooxdiisu si cawasha wax u arkayeen, maanta ma kula tahay in xasan badbaadadiisa ay ku jirto Laascaanood tagitaankeeda ee aysan ku jirin inuu Muqdisho sii fadhiyo? alla Ilaahay caadil sanaa. soo dhawaada dhammaantiin warbixintan iyo muuqaalkan bay iga fogayo meel dheer ka tuura. walaalayaal xamar dowladda ka jirtaan cadaadis baa la saaray. maamulka waqooyi barina wuxuu noqday dhufayska ugu dambeeya ee laga difaacayo qarannimada Soomaaliya. maamulkaasi oo la dhayalsanay markii hore waxaa loo sameeyay maamulkaas hub lagula dagaalamo Puntland ma ahayn Somaliland. maamulkan waxaa markii hore loo sameeyay in lagula dagaalamo lagu curyaamiyo Siciid Cabdilaahi Deni iyo maamulka Puntland.
انتهى لو سمي أنا ما أنا أرانا حسن بايري حسن شيخ محمود دايري خطبة دي وقدام بيسيب كوير سداس وايو عامل كان أنا هرتي أما دارود أما الصومالي وين تمني ماذا آمن سنين وحان أصميني إن قبل هذا السوري سناق لقد دفاع قوني قوسط كسومالي حسن خطبة دي سوي كشبي إن وقوي وكجرو هل نظام هل كاس النظام وهذا هذا اللوذي أي يجينا خيامين السجع غير هذا نعود كيس نقول عليه وأكل iyadoo wada hadallo yididiilo leh noo socdaan ballamana aan dhiganay wuxuu ahaa waddo kale oo lagu lumay iyadana walaalaheensa ay ka adkaysteen inaan iska afgaranno MOU-gii maantay wuxuu noqday wixii anagu aanu rabnay inuu noqdo maamulkaas in lagula dagaalamo gooni goosadka intiiba hadda lagu salaatay haddaba سعودية تركيا مصر إيران تشاينا جيبوتي إريتريا يمن كونفرت يمن حوثيين طبعا كاس ديارو يهين دفاع من نمدا صوماليا waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan saameynta Israa'iil ee waqooyiga Soomaaliya waxay diyaar u yihiin inay taageeraan cid kasta oo maamulkaasi ka soo horjeeda waana maamulka waqooyiga haddii horay al-shabaab ay u ahayd khatar qaran oo malaayiin dhaqaalaha lagu bixin jiray askariga shabaab la dagaalamayana wax kasta lagu fangareyn jiray maanta waxaa la mid ah askariga taagan difaacyada maamulka waqooyi Bariitaanka haddii loo arkayo muddo dheer dagaalka ay ku jiraan SSC dagaal u dhaxeeya Isaaq iyo dhulbahanti ama Isaaq iyo Harti waxaa loo arkayaa xilligan dagaal u dhaxeeya islaamka iyo gaalada dagaal u dhaxeeya in la badbaadiyo qaran Soomaaliyeed iyo in laga takhaluso qaran Soomaaliyeed dagaal u dhaxeeya diinta islaamka in la badbaadiyo laga hortago sahyuuniyadda waxaasoo dhan in muhiimadaas ay maamulka waqooyi bari yeelato waxaa kalifay iyadoon awal waxba la isaga tiirinayn oo la rabay in maamulkaasi uu noqdo warqad gorgortan oo Somaliland lagu keeno miiska wada hadallada ama ciro lagu keeno miiska wada hadallada waxaa keenay tallaabadii Netanyahu uu qaaday 26 December ee uu ku adoonsaday maamulka Hargeysa ma ahan aqoonsi waa adoonsi وتاسع يا مانت iyadoo la iska indhatirayay oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu ay islahaayeen 8 xildhibaan oo dhulbaantay iyo 5 warsan gali laas caanood ku xulo Puntland ku daciifi ma taqaanaayay markaad samaysid iyaga been u sheego u tagay cirana ku dheh ma taqaanay waqooyi adaan kala xisaabtamaya 49 xildhibaan oo dhul isaaqna qaado 49 xildhibaan isaaqna qoro هجردامada isku jir waa tan maanta kaliftay in Xasan la yiraahdo dhulka aad leedahay wuu iga tirsayay bal horta tag inna lillahi wa inna ilayhi waxa lagu yiri dhulka aad leedahay waa iga tirsanyahay ee aad leedahay Israa'iil baa ku soo duushay bal horta tag haye waan tagayay hadu diyaaro soo qaadanaya la saacad butaawir isku sawiro muxuu isku sawirayaa waa shalay dhiigi meeshaasi ka dhacay oo uu lahaa 36 qof baa ku dhimatay وشلي هالجنكي اللي جري ماشي أو قبيلة وأفرت البلاد قدام ما يسدد كاسو يسكده ورجري إلهي غادر سنة بل أوفيرس سنة نكاس نفسك وسوق قرد الدوبي وعير على علم أفجري برابها نفسك ونوعير واسدي مواد القلابات بل أوفيرس ماشي عن كان لي هاي سر مقبل الله وصحن سلم قبل الله وصحنا aad bay u nasiib badan yihiin dadkaas waxa weeye khiyaano kasta iyo shirqool kasta oo la xiro ilaahay baa ka weyn nagar kasta oo la xiro ilaahay baa ka weyn inta nagar loo maleegayo ka badbaadin xisaab male runtii ilaahay baa idan jecel waayo dulmi ma wada gardarro ma wada dawladdii Soomaaliyeed aad miciin bidayseen
iyadoo qabiil daarooda idinku tiirinaysay idin agardaabaynaysaa maxaa daarood ka galay dadkan daarood 15 sano halka Soomaaliland joogtay mudifaac maalintii 200 oo qofna madax duub lagu dilay caruurtiina la laayay baa daarood dhibaatada iyo xanuun ka dareen maxaa ka galay dadkaasi daarood maya anigu la ascaano tagi mayo ana madaxweynaha Soomaaliyeed oo maxaabiis meesha ku xiran tahay ma tagayo caaw cali dheere iyo mahad karatay hadii la soo xiro lagu xiro Muqdisho ma sii deyn lahaa xasan sheekh hadduu run sheegay xasan daahir abeesanina bargidura cayraha sii daay maxaa loo sii deyn way xasan daahir Faisal Cabdi Bootani ragal la jiray dambiilayaal bi maya ma tagayo ma tagayo saan doonaan u dhaqmaya maantayna shan baanahay si baanahay saada baa si baanahay daruufaha ibadbadala maanta daruufu ma ku bedeleen xaqiiqadii ma ka soo hor ka laabatay runta qaraar ma aragtay khiyaanadii iyo isdhuldhigii iyo maamulkii aad ka dhiganaysay gorgortan warqad gorgortan isaaq lagula gorgortamo isaaq asxaan ma kuu sameeyay dhulka ma kula soo galeen qodobkaas halkaasaan uga tagaya walaalayaal hal xaqiiqo oo qaraar waa meesha ugu dambaysa waa runta ugu dambaysa cid kale ka maqli maysid haddii la waayo maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya oo dawladda Soomaaliyeed ama madaxweynaha Soomaaliyeed ama xasan ha noqdo ama mid ka horeeya ha noqdo ama mid imaanaya ha noqdo uusan naf iyo maal qiimo kasta ku kacdo taageero uusan siinin maamulkaasi u fiirsada uusan siinin maamulkaasi ma jirayso wax la yiraahdo Soomaaliya ma jirayso wax Soomaaliya la yiraahdo oo xor ah dunidana laga yaqaan ma jirayo kursi dambe oo Muqdisho yaala oo caalamka looga tugsado waa khad gaduudan weyn maanta in qaran Soomaaliyeed si jira waxay ku xiran tahay sida Soomaalidu u fahanto khatarta ay wajahayaan gobolada Soomaaliya sanaag ee maamulkaas waqooyi bari uu ka arriminayo haddaad u qaadatid isaaq iyo dhul baanta isaya aad u aragtid ku xisaabtan in isaaq quwadda yahuudda wata uu xuduudahaasi la wareegi doono afti khasab dadkaasi ka qaadi doono Israa'iil iyo diblomaasiyadooda aan la dhayalsan karin ay shaqayn doonto aakhirkana qabiilka isaaq waa qabiil oo quwad shisheeye wata hadduu qaran noqdo wax diidaya male in Puntland iyo Jubbaland ay qaran noqdaan Soomaaliya hal sharci bay dunida kula macaamisha waa hal sharci midnimada jiritaanka dhuleed dhul bad qarannimada Soomaaliya waa lama taabtaan cid kala goyn kartana male hadduu dalku kala go